بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن wanaagsan daawadayaal idil ahaantiin ba halkaad naga daawanaysan waa RTN xarunta ay ku leedahay magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida kuna soo dhawaada barnaamijkan ku eegayna xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanka Soomaalida taasoo saameyn ku yeelatay in ka badan 2 milyan oo bulshada ah barnaamijka waxa idin la socodsiinaya waa anigoo Muxudiin Aadan Maxamed Xarago waxaana ku eegi doonaa saameynta ka dhalatay abaartan oo ku dhufatay qaybo kamid ah bariga Itoobiya barnaamijka waxa marti uga agaasimaha RTN laanta dawladda deegaanka Soomaalida Axmed Cabdiraxmaan Axmed Kaabe oo aan si qodob dheer uga wareysan doono abaarta waxa uu kala socdo 24 saac la soo dhaafay waan ku soo dhaweynayaa agaasima Axmed Kaabe bal waxaan jeclaan lahaa inaan wax ka weydiiyo waxyaabahan kala socono xaaladii ugu dambeysay 24 saac la soo dhaafay abaaraha ka jira deegaanka Soomaalida oo la sheegay in maalinba maalinka ka dambeysay ay ka sii darayaan bal maxaan kala soconaa agaasima wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya qaybo kamid ah deegaanka Soomaalida kuwaas oo ay laga dayranay xaaladda abaareed ee ka jirta qaybo kamid ah deegaanka ama si guud ba abaarta u saameysay aad u maasantahay Muxudiin Aadan Maxamed Muxudiin Xarago سؤال آدم مهم ويان صاشرتي إلا يشالي يحالي وحن آدم مشغول سنة إن عن حرر بدل الله سميه قبل هذا ضد مويك مع المجالو يكسي عن حقول له يهرب حالة عبارة برشلو ويكرر سنتهاي أما ضل يدبت بقى هل كأمرس حالة عبارة لكن هو حسد مدن إن ساعد وساعد كده بيسا أي كسي دريسو سؤالان حركي وحن لسه مالك الدون حدان سؤال سقطه قبل جرر ودرس له هذا قبل كفافل ضد بدل بعنا حريري وأما قوي هنو أما قيبها كليه بالشرع waxa ay sheegeen waxyaabo aan aad uga argagaxo oo aan la malaysan karin qaarkood waxay la wadaageen sawirro waxa aad igu la yaabadnaa insan la wada socono saddexda meesi loodii ariga iyo geela ka ugu adkaysiga badan ugu dambeeya xagga nolosha waxa la yiraahdaa waa geeli oo u muuqda sida loodoo kale inuu jirkiisiiba uu dhamaaday oo baabay isla markaana haatan ay gashay macluusha dadkii ay gashay عروت ay gashay hooyooyinka ay gashay degmooyin badan baan kala xiray gobolka agaasime hadaan ka dhax galo si guud ayay u saameysay deegaanka abaartu marka laga reebo gobolka City oo isagu ku yaala galbeedka deegaanka Soomaalida adoo ma laba gobol kaliya oo baad la xiriiray mise si guud ayaad la socotaa xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanka si guud baan u la xiriiray maadaama gobolka Jarar uu diris leeyahay gobolka Faafan ayaan ka bilaabay gobolka Qorraxe waan la xiriiray shabeelle waan la xiriiray afdheer waan la xiriiray intaas oo gobol ayaan la xiriiray waxaana ay sheegeen gobolka markaan la xiriiro dhibaatada gobolka taalo inuu kana ay taalo waxyaabaha aad iga siiyay waxay ahayd gobolka afdheer kale degmooyinka Qooxli iyo Godgod oo xadka Soomaaliya ku yaala wada xumo jirta awgeed inaan xiriir fara badan ay maamulka gobolka ama degmooyinku ayna sameeynin meelaha qaarkood wax raashin inuu gaarin حتى كورميرك حتى إنه نجارين مركب علاش فرق بدن أي قبل هذا الدريم قال هنا ده وصل قطع قبل كافلر عن كل حجرنا وربحين تيسا دقمة على الكريم ودقمة بورلية ده كنت بدن بوره الدقيقين مركب مالها قاركود وضحوا أي بابور تقول لا إنه تيجي على هاي محض ملك تمركب نقطة ده بوره صارا ده واجري عرق بوره كسود الكريم هل كبي بدنا نقول الكريم مركب مال تكتب بس حارض وعكسي دريسا Muxudiin hadii aan kugu daro waxyaabaha kale ee aad kiiga yaal waxay tamarkan gobolada la xiriirayay gobolada carabka aan ku dhuftay walow aan doonayo maanta wixii ka bilaabay ilaa caaw kale inaan hadana goboladii kale aan xiriir la sameeyo gobolada inta la eg ee xaaladda abaar ay ka jirto ee dhibaatada aan ku sheegay geeli sida looda u baabaayo oo dhimanayo dadkii caruurtii haweenkiina ay iyagu laftooda ay meel qaarkood dhimashadu ay bilaabatay meel qaarkood dadku dhibaato badan ay ka jiraan in wax telefishin oo gaar loo leeyahay telefishin gaarka ah dadka Soomaaliya ku hadla markii aan weydiiyo ay raado wax TV oo gaar ah oo private TV-da ma yimaadeen ma yaqoonay kuma sheegeen marka laga tago telefishinka afka dawladda ku hadlay SRTV taana xaalad ayay sii cakraysaa waxaan rabaa inaan fursadan kaga faa'iideysto shirkii jihada qabtay madaxweynayaashii hore deegaanka Soomaalida sida Cabdullaahi Xasan Khadar Macallin Axmed Makaahil
in ay xukuumadda dowladda deegaanka Soomaaliya ka codsadeen in saxaafadda xorta ah cadaha loo sii daayo ay tagaan kana soo waramaan xaaladda ee abaaraha hadalkaas oo aad saxaafaddu ay ku dirsatay aad aan u soo dhaweynayno isla markaana aan rajeynayno xukuumadda dowladda deegaanka Soomaaliya ugu horeeya Mustafa Maxamed madaxweynaha iyo xisbiga injineer Maxamed Shaalle in saxaafadda madaxa bannaan in ay tagto goob walba kana soo warbixin hagaag baad mahadsantahay maxaa sababaas leedahay aragti ahaan in la adeegsan waayo saxaafadda gaarka oo loo baahnaa inay door muhiim ah ka qaadato maadaama ay bulshadu la tabaalaysan tahay abaarta oo si baan u saameysay isla markaana dhaafisay duunyadii dadkuna ay ku sii daba socdaan ama aynan haysan waxay noloshooda ku daboolaan hadda dawladdu waxa la dhihi karaa kalsooni kuma qabto warbaahinta madaxa bannaan inay si dhab ah u soo tabiso xogaha iyo wararka la xiriira abaaraha waa su'aal wanaagsan muxudiin haddaan su'aashaas jawaabta ku habboon aan ka siiyo waxa in badan xukuumadda deegaanka Soomaaliya mas'uuliyiinta heer deegaan isaga khaldan waxa weeyaan saxaafadda gaarka ah in ka badan 12 TV ama 16 TV ayaa ka howlgala deegaanka TV-yada waa suurtagal waxa laga leeyahay meel ka baxsan deegaanka marka laga tago DTV SRTV oo kale iyo nabadda iyo albaabada loo xiray laakiin TV-yadan waxa laga leeyahay meelo kala duwan shirkado kala duwan baa leh kambaniyo kala duwan baa leh oo deegaanka ka baxsan laakiin waxa isweydiin leh suxufiyiinta ka howlgala ama shaqaalaha ka howlgala ma aha meel kale kama imaanin waa dhalinyarada deegaanka wax ku baratay saxaafadda baratay ahna kuwa u firfircoon marka TV-yada hadday TV meel kale laga leeyahay kambani kale laakiin dhalinyarada waa dhalinyaradii deegaanka wax u baratay marka waxa la dhihi karaa kuma kalsoona in TV-dan gaarka ah ay meelihii galaan laakiin balse haddii dhanka kale ka eegi lahayn dhalinyaro muwaadiniin ah oo deegaanka u dhalatay in ay ka soo gudbin karaan xogta saxda ah isla markaana dowladana dan u ah bulshada dan u ah baad mahadsan tahay su'aasha sida fudud aad uga jawaabtay dowladdu waxay sheegtay in ay wado tallaabooyin ay kaga jawaabayso abaarta taasoo ay soo tabiso marka adu maxaad kala socotay gargaarada ay dowladdu kaga jawaabayso abaaraha sameela ay gaar u geysay ama wax maxaad ka haysaa macluumaada waa su'aal fiican oo aad muhiim u ah dad badan ay jeclaysanayaan horta runtii abaarta Ilaahay baa keena waxay ka mid tahay masiibooyinka dabiiciga ah masiibooyinka laba loo qaybiyaa ama dhibaatooyinka deegaanka ku dhaca waa mid dabiici ah oo Ilaahay uu keenay sida roobka iyo duufaanta kale iyo mid dad samee ah oo dhibaatooyinka dadka xaggooda hadda ka yimaado sida xaalufinta dhirta oo kale marka tan waa Ilaahay baa keenay Ilaahay bay gacantiisu ay weyn tahay ummadiisa ku filaada miyi magaalada marka abaartan timid waa masiibo dabiici ah waa masiibo Ilaahay uu keenay oo deegaankeena ku dhacday marka doorkii xukuumadda deegaanka Soomaalida sidii loogu talagalay ma looga jawaabay gurmadkii ma u socdaa meelaha qaarkood media gaar ahaan SRTV TV-ga dowladdu meelaha qaarkood waa laga daawadaa raashin dad masaakiin la siinayo laakiin baaxadda intaa leeg abaarta intaa leeg dowladdu wax kama qaban karto kala duwan baan la xiriirnay degmooyinka qaarkood waxaa laga yaabaa degmo intaasoo qaban inay ka kooban tahay oo halkii degmaba 15 santar inay tahay haddii hal santar ama laba la gaarsiiyo intii kale way bannaan tahay isla santarkii baa laga yaabaa mararka qaarkood la soo gudbiyo 100 qoys marka meel ay ku dhibaataysan taasoo ku qoys haddii 100 yiraahdo waa farkama qodna faawar marka waxa maqan doorkii bandhiga warbaahinta oo xaqiijin lahay xaaladda iyo ka jawaabitaanka waxaanan ilaa haatan muuqanin isku tashi bulshada dhexdeeda ganacsatada qurbo jooga inay saas leeg ay ka gacan geystaan hawsha abaaraha oo ah mid aad u baaxad weyn waa hagaag aad baad u mahadsan tahay warbaahinta haddaan u soo noqono dhanka warbaahinta haddaan u soo laabto warbaahintu iyada laftoodu maxaa caqabado kor taagan inay ka qayb qaataan meen ahayn in iyagu iskood iyo dawladda ka rabin inay iskood uga qayb qaataan wararka u soo tabiyaan caqabada hor taagan warbaahinta maxay tahay uga qayb qaadan lahayn abaaraha saxaafadaha kala duwan ee deegaanka ee ku sugan ama dhaho telefishinada kala duwan
kurba aad u fara badan ayaa ka haysata dadkan dhibaataysan waajibkooda inay xogaha soo gudbiyaan marka arrintaas waxa weeyaan in ka xukuumad ahaan ka xisbi ahaan ka maamulada gobolada degmooyinka magaalooyinka haddiina arrimaha lagala shaqaynin ama goobtii ama lagala soconin way adag tahay inaad suxufigii iyo kaameramaankii inay tahay meesha tagaanayso haddaan cidba kaala shaqaynin mararka qaar waxaa dhici karta laftaada in riski ay ku timaado adoo dad u gurmanayo in adigii aad khatar ku gasho marka waxay ku habboon tahay arrintan in maamulku uu kaala shaqayn karo tim waayo dhul fog baa tegaysaa dhul xoolo dhaqataa tegaysaa mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaad gaadi u baahato mararka qaarkood inaad meeshii aad ku socotay marka haddaan arrintan lagala shaqaynaynin saxaafad gaarka way adag tahay in ay magaranaysaa wax ay ka qabato waxaan aad ugu faraxsanahay su'aalahan maanta aad weydiinayso oo bulsho inta badan daawanayso ay gash u noqonayso ilaa hadda adu waxaad kala socoto xogihii ugu dambeeyay abaaraha ma jiraan dad u dhintay abaarta oo aad hadda xusi karto mise maadaama ay xoolihii dhaafeen dadka xaaladda nololood unbaa laga dayrinaya weli ma gaadhin dhimasho dada ولا سؤال في عن مال قاركود والله شيء هويين حاملها عارول والله شيء لكن حتى ما عودنا ما عابي كرو قلت لكن ضد قاركي ويكون شيء يعني لكن هذا وحال أو بدن اللي هو شيء إن أي هاتن بلاوته معروش ضدك أو معروش ضدك أي بلاوتين dadka qaarkiin ay u leeyihiin waxana waa telefoon baan ku wada hadlaynaa laakiin marka aad timaado ayaad arki doontaa dadka dhafoorkooda tusaale meelahaas lay magacaabo hadda wax kamid ah sida gobolka Afdheer degmada Qooxle iyo Godgod iyo degmada la yiraahdo Imay Bari oo marar badan ka soo shaqeeyay ceel kari dhulkaas wuxuu ahaa xoolo ka beerley ah oo buurley ah maantana dhibaatadaas ku qabsatay waxa la mid ah gobolka hadda jarar degmooyinkiisu marka waxa muhiim ah inaan xukuumad kaliya waxba laga sugin ee dhammaan gacanta la isqabsado yar iyo weyn shirkad xafiis abaabul waliba waxaan rabaa madaxweynaha inaan ku raacin madaxweynayaashii Soomaaliya deegaanka shirkoodii jaraad hataa waxa ku jira in abaarta soo gashay magaalada Jigjiga hadda madaxweynaha ku hayna waa xarunta deegaanka waa magaalada Jigjiga hareeraheeda oo idil dadkii soo barakacay ayaa joog maxay in albaabada loo furo oo magaalada la soo gal xataa dadka la qaybsado waxay ku tiirsan tahay baadiyaha oo baadiyaha laftiisuna magaalada ay ku tiirsan yahay maxay ila caanihii iyo hilibkii iyo xoolihii baadiyaha ay ka iman jireen taasina markii abaartu ay noqotay mid aad u saameysay bulshadii waxa gabaanba ka baxay adeegyada ka imanay baadiyaha abaartan ayaana imanaysa markii la waayay laba kal oo isku xigta roobkii taas ayaa imika ay tahay xaaladda in ay dadkii dhaafeen xoolihii balse laakiin lagu hawlan yahay sidii lagu badbaadin lahaa dadka nafahooda oo la sheegayo in ay hadda la ildaran yihiin gaajo oon iyo weliba nafaqa darro soo wajahaysa dadku maadaama ay isugu imanayaan gooba si qaxooti ahaana markii ay dhaafeen dadka xoolihii qaybihii dhexe barnaamijka ayaad la socotaan waxaadna ka daawanaysaan RTN xarunta magaalada Jigjiga waxaan idinla socodsiinaya waanigoo Muxdiin Xarago waxaana marti ugu agaasimaha TV-ga RTN qaybta deegaanka Soomaalida Axmed Kaabe agaasime dabcan abaarta waa wax Ilaahay keeno masiibooyinka dabiiciga ay ka mid tahay dawladda waxay wadaa tallaabooyin ay abaartan dadka ugu gurmanayso dadka shacabka ama qurba joog ha noqoto ama ganacsadaha ha noqoto ama hay'adaha bixiya deeqaha ha noqoto maxad halkan maadaama haysano fursad aan codkeena aan ugu helino ama aan ku sheegno xaaladda jirta ee abaareed maxad oran lahayd oo aad ugu baaqi lahayd hadii noqoto ganacsadaha ama qurba joog ama hay'adaha bixiya deeqaha samafalka ma jiraan waxad maadaama xaaladdu ay tahay xaalad aad u culus xukuumadda kaliya inay ku filayn horaan sheegay abaarta Ilaahay baa keena barwaaqadan Ilaahay baa keena marka koobaad anu waxa aan soo jeedin lahaa oo halkan aan kaga faa'iideysanayo fursadan aad siiso kaaga mahadcelinayo markood in is saamaxo in is cafiyo waxa abaartan keenaya waxa weeyaan waa dadkan cuqubo iyo nafsi iyo kala quranayaan weeyaan
hadduu dadku sax noqdo oo la iscaafiyo oo la issaamaxo ilaahay dhulka wuu noo shubayaa su-aashu dabcan waxaa ku jira oo kale oo idaaraneed qurba joogta iyo dadka iyagu dowladda ka madax bannaan markaan ka hadlayno inaan ka hadlayno siyaasadda miyaynan ahayn in ay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha oo maadaama dowladdu dhankeedii ay wado waan u soo laaban doonaa mucaaradkii iyo saamixitaanka laakiin dadka shacabka ama ganacsatada ama qurba joogta u dhalatay deegaanka iyo hay'adaha laftoodu bixiya deeqaha inay garab istaagaan meelahan dadkan ay abaaruhu saameeyeen ku nool deegaanka horta markaad xoog heshaa tala heshaa haddii dadkii diyaasbaraha ama qurba joogu aynan xogtii saxda ahayd deegaanka loo gudbinaynin sidee bay u soo gurmadaan ilaa hadda waxaan leeyahay xaalad abaareed keliya abaarna waa iska naqaanaa waa in lagu dhawaaqaa xaalad degdeg ah oo dhimashada dadka ah xoolo maanta lama hadlayo arrin markaasna ay saxaafaduna gudaha u gasho oo qabale walba iyo tuulo walba suxufigii oo taagan oo dadkii ama dhimanaya ama xoolo soo gudbiya markay qurbuhu ay u tagaan diaspora waa ay tuso taabsi waa inay wax arkaan waa inuu suxufigu waxaan taaganahay degmo hebel qabal hebel baan taagana waa ka live uu soo galo marka ay arkaan dadka diaspora salahan dadka ugu ganacsiga badan ama ugu dhaqaalaha badan ee Nairobi waa deegaanka Soomaalida ay ka tageen marka Sacuudiga tigtiinda waa iyaga ugu badan dadka ugu badan South Africa waa iyaga Mareykanka waa iyaga imsa qomna ka dhoofay marka ma hayaan xogtii ku habooneed u soo gurman lahaayeen hal u dhawaaq xaalad degdeg ah tan xukuumadda saaranta dabcan waxaan hore u soo xusnay in aan la adeegsanin warbaahinta madaxa bannaan hadiiba aan la adeegsanin warbaahintii ka madax bannaanay dawladda ee xogaheeda dadka shacabkii ay ku kalsoonaan lahaayeen oo dabcan markaan saa leenahay waxa laga yaabaa TV-ga dawladda in la dhawo TV-ga dawladda oo waxa ku hadlaya afka mas'uuliyiinta hadii aan dawladda aynan adeegsanin warbaahinta dadka ka baxsan ee aan joogin deegaanka hadii qurbaha noqoto iyo hadii ay noqoto kuwa dalka jooga laftooda aan si dhab ula socon xaaladaha jira walow aan aaminsanahay ma aan filayo in qof walba ka dharagsan yahay xaaladda macluuleed ee ka jirta deegaanka ay sababtay abaartu haddana maxaa tala ah oo dadkaasna xogta lagu soo gudbin karaa oo ama dawladda aad kula talin lahayd ama suxufiyiinta ka howlgala deegaanka Soomaalida iyo warbaahinada joogaba sidee baa loo soo gudbin karaa xogta dhabta jirta si dadka diasporada iyo hay'adaha bixiya deeqaha ay u arkaan xaaladda nololeed way hada su'aasha ka jawaabo horta hawshan xukuumadda u taala dadka ma taalo iyadoo looga baahan yahay salahan xilliga campaign-ka ololaha lagu jiray ee doorashooyinka lagu jiray baabuur baa la adeegsanayay ama kuwan baabuurta raaxada iyaga wataan oo kale ama gaadiidka kale ee waaweyn ama basas baa la adeegsanayay gobolada la tagay dhaqaalaha la tagay maanta xilli doorasho ma waa xilli abaar xun ay jirto waa in sida campaign-ka loo galay campaign-ka ololaha badbaadinta dadka xoolo waa lagu kala tagay wata saxaafadana in loo yeero guddiga hadda dhisan guddiga ilaa hadda guddiga waa noo guddigii xukuumadda in guddi la sameeyo muxaafid mucaarad in la sameeyo in guddiyadii ay isu yimaadaan in miidiyihiina loo yeero gaarka ahaa campaign-kii gobolada loo wada baxo la sii daayo xitaa xukuumadda madaxweynuhu tigta gaarka isugu yeero guddiyada la sameeyo war telefishinadii dhaqaaqa war xogtiisa oo gudbiya meel walba waa tusaalahan telefishinka arteen imsaatan milyan baa ku xiran telefishinka hadda arteen kaliya oo TV kala daawanin hagaag ka warbaahin ahaan haddii aan u soo laabto oo aan iyaga laftooda doorka ay ku leeyihiin aan xusno warbaahinada waxaa dabcan ka dhawaajisay in ku dhawaad 12 TV ay ka howlgalaan deegaanka Soomaalida balse laakiin wax ka qayb qaatay oo si toos ah u soo tabiyay wararka iyo xogaha la xiriira abaarta ay yaryihiin ama aysan jirinba wariyaasha iyo TV-yada laftoodu ma jiraan isku day ay sameeyeen oo ama tiimam ay u sameeyeen ama ay siyaabo kale ay u sameeyeen oo ah in ay ka qayb qaataan si iskooda iyagoo ka maarmaya dawladda horta isku day uu jiraa laakiin ma ku filan tahay isweydiin leh isku day uu jiraa saxaafaddu ay sameeyeen meelo kala duwan oo aan jigjiga area aan ka bafogeyn way jiraan oo ay gaar gaaraan
telefishinka hadda dowladda isticmaalaysana هو نكس حبك سيدا سو gudbinayo xitaa si loo kalsoonaan karo dadku xitaa inta daawanaysa maaha waa inuu sheego qabalaha ama wax loo qaybinayo ama degmada baaxadda ku nool waa intaas oo kun waxa loo helo waa intaana waxba loo mehelin qoys hadii 100 qoys nin kasta la siiyo 3 rufac waa 12 kiilo 30 kiilo aan dhammayn haddana uu yiraahdo 100 waan dharagnay waan barwaaqownay maxaa isbedela baa la dhihi karaa shalayna sidaa aan bayahay waqtiga aan ka shaqeyn jirnay telefishinka STV ilaa waqtiga SRTV aan ka shaqeynay waa wax wanaagsan oo sheeg marka dadka waxay noqotay mahmaadi ahayd dibiga dowlad dhagihiisu warsan oo bay maqlaanay indhihiisu ma arkaan daawadayaal barnaamijka waxaan ku eegaynay abaaraha ka jira deegaanka oo saameyn ba'an ku yeeshay nolosha bulshada taasoo ay dawladda lafteedu wado tallaabooyin ay kaga jawaabayso balse laakiin aan wali ku filnayn maadaama ay baaxadda abaartu ay aad u ballaarnayd xoolihii way dhaafeen dadka balse laakiin dadka ayaa ahaa tala daalaadhacaya sidii noloshooda loo badbaadin lahaa taasoo aynan haysanin maadaama ay xoolihii dhaafeen xooluhuna ay ahaayeen waxa ay ku tiirsanaayeen ayna manfaacadsan jireen haddii ay gaditaan noqoto maalida iyo cadkoodaba dadka waxaa soo food saartay intaaba marka ay waayeen nafaqa darro caafimaad la'aan iyo hoy la'aan maadaama ay ka barakaceen ama ay ka hayaameen deegaanadii ay deganaayeen isla markaana ay raadiyeen meelo ay xoolaha intii ka hadhay ay ka helaan cagafka xoolaha ama biyaha aan u soo laabto su'aalaha oo barnaamijka dabcan gabagabo uu ku sii socda ka TV ahaan RTN ma jiraan qorshayaal maadaama agaasimihii TV-ga tahay qorshayaal aad u diyaarisay ka qayb qaadashada abaaraha intaan wala wadaaga maamulka guud ee RTN gaar ahaan maareeyaha Maxamed Khadar oo aad u soo dhaweeyay inaan gobolada aan booqano intaan awoodana aan gaari karno arrinta waa qorshaha noo yaala insha Allah berri wixii ka dambeeyana in aan booqano hadda waxaan ku sugnaa gobolka Faafan magaalada Jigjiga oo caasimada gobolka noogu horeeya oo dhankana gobolka Jarar waxaan la xiriiray maamulka gobolka Jarar gudoomiyaha inuu nagu booqdo oo aan xaaladda soo eegno aad buu soo dhaweeyay inaan magarnaysaa aan gobolka tagno kalka aan ka bilowno marka qorraxay shabeelle afdheer nagob inaasaa ku galno doollo marka taas waa qorshaha inoo yaalo wixii anaga aan ka awoodno waxaan codsanaynaa in maamulka heer gobol iyo heer deegaan arrintaas aan ka wada shaqeyno isla markaana ay noqoto mid daahur ah TV-da kala Soomaaliya ku hadlaysa si leeg in iyagu inta is abaabulaan in meelihii la tago waliba aan jecelahay teamkayga hadda RTN in aan meelaha ay dadkaas xoolaqtada ah in xitaa habeenno la soo seexano wixii aan codkoodina soo gudbino noloshana la soo qaybsano isla markaana wixii aan u qaban karno anaga xooganaga marka laga tago marka codka aan ku soo gudbino marka laga tago in laftana xooganaga aan ku bixino wixii aan xitaa dhaqaale heli kara marka Ilaahay noo dhibina aan ku bixino ka telefishinka RTN ahaan maamulka guud aan magayso ku hadlaya hagaag daawadayaal inta waxaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii aan kaga hadlaynay xaaladda abaaraha oo marti ugu ahaa Axmed Gaabo agaasimaha RTN ee laanta deegaanka Soomaalida barnaamijka waxa idin la socodsiinaya waa anigoo Muxdiin Aadan Maxamed Xarago waxaadna naga daawanaysaan RTN xarunta ay ku leedahay magaalada Jigjiga caasimada deegaanka Soomaalida barnaamijka waxa ay gala qayb qaato gacan weyn iga siiyay Najiib Day Maxamed Umar Albashiir iyo Nasriin Maxamed oo kamid ah shaqaalaha RTN ee deegaanka Soomaalida oo qaybta farsamada inoo fadhiyay intaan barnaamijkan ka xiga ku kulmi doono waxaan kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta
lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeegga idahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barlaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil howlfudaydyahaaga maaliyadeed.